Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kulan wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona Mareykanka oo lolo ugu jirto joojinta iibka shidaalka wadanka Ruushka oo saacad u qabtay shacabka inay isaga baxaan magaalada Kiev ee caasimada wadanka Ukraine. Wararkii ugu dambeeyay ee Kuuriyada Waqooyi oo tijaabsatay dayax gacmeed wax basaasay iyo shaki badan oo laga muujinayo iyo arrimaha ku aadan dagaalka ka soconaya wadankaasi Ukraine ayaan daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa. Haddaba daawaday haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo Ukraine. Xukuumadda Ruushka ayaa maanta oo Isniin ah sheegtay in ay furayso wadooyinka bini'aadanimo cusub kuwaas oo isku xiraya magaalooyin badan oo ay ku jirto caasimada Kiev si loogu ogolaado dadka rayidka ah in magaalooyinkaasi ay isaga baxaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku eedeeyay Ruushka in ay dileen dad rayid ah kadib markii Ruushka uu weerar ku qaaday magaalada Irpin oo ku dilay qoys dhalinyaro ah. Sida uu sheegay madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky in ay taasi marnaba u dulqaadan doonin isla markaana mar waliba ay muhiim ay tahay in shacabka la samata bixiyo. Madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaana sheegay in dowladda Ruushka ay haatan ay wato tacadiyadii ugu xooganaa oo ay haatan ka bilowday dalkaasi. Marar badan ayaa dowladdan looga digay militarigeeda inay duqeeyaan goobaha dadka shacabka ah ay ku badan yihiin. Haddana waxaa wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in dhaliisha ugu xoogan hadda dusha laga saarayo wasaaradda difaaca wadanka Ruushka. Haddana madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa go-aankiisa ugu weyn waxa uu yahay in uu ka fogaado dhibaateynta dadka shacabka ah, inkastoo Vladimir Putin uu asna go-aan kale uu qaadanayo. Putin iyo Zelensky ayaa horay go-aankooda u ahaa in ay wada hadallo ay yeeshaan oo lagu xalinayo dagaalka ka soconaya wadanka Ukraine. Hase ahaatee dagaalkaasi ayaa waxa uu u muuqanayaa inuusan joogsanaynin inkastoo madaxweynaha Ruushka weli uu diyaar u yahay wada hadal. Vladimir Zelensky ayaa horay waxa uu u ballan qaaday in dowladda Ruushka ay talaabooyinka ay qaadayso ay ka hortagi doonaan ciidamada wadankaasi. Dhanka kalena saraakiisha difaaca Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay dib u qabsadeen bariga magaalada Jujaava la yiraahdo. Magaaladan ayaa waxaa la sheegay in ay horay u deganaayeen ciidamada wadanka Russia, balse ciidamada Ukraine ayaa dagaal xoogan ay la galeen ciidamada wadankaasi. Waxay haatan u muuqanayaan in mar kale si awood ah ay kula wareegeen. Lama oga waxa ay kala kulmi karaan inkastoo halkaasi haatan duqeymo ay ka soconayaan. Dagaalka ugu xoogan ayaa waxa uu ka soconayaa wadanka Ukraine gaar ahaan magaalada Kiev. Agagaarada magaalada Kiev ayaa wararkii ugu dambeeyay wax la soo warinayo waxay sheegayaan in ciidamada wadanka Ruushka ay duqeymo xoogan ay ka wadaan. Lama oga shacabka halka ay ku dambeyn doonaan inkastoo xukuumadda Moscow ay doonayso inay wax waliba ay soo afjarto. Qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay heerkii ugu sareysay tan iyo 2008 kadib markii uu Mareykanka uu sheegay in ay ka arrinsanayaan sidii uu cunaqabateyn cusub loo saari lahaa saadka Ruushka iyo xulafadiisa. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in wada hadallo ay kula jirto xulafadooda qaaradda Yurub sidii gebi ahaanba loo joojin lahaa iibka batroolka laga soo saaro Ruushka oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha ugu muhiimsan xukuumadda Vladimir Putin. Waxayna dowladda Ruushka tani ku noqon doontaa caqabad adag oo markan ay soo wajahayso inkastoo madaxweynaha wadanka Mareykanka uu horay u tilmaamay in ay talaabooyin ay qaadi doonaan. Sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa horay waxa uu u tilmaamay in ay mar walba ay u baahan yihiin inay dadka shacabka ay samata bixiyaan kadib wixii ka dambeeyay dagaalka ka soconaya wadanka Ukraine. Dowladda Ruushka ayaa dhaqaale darritii ugu xumeyd haatan ay soo wajahaysaa inkastoo Ruushka haatan la sheegayo in saacade u qabatay dadka shacabka inay isaga baxaan magaalada Kiev. Ciidamada Ruushka ayaa saako Isniin ah sheegay in xabadda ay joojinayaan si ay fursad u siiyaan inay shacabka reer Ukraine ay isaga baxaan magaalada Kiev iyo sidoo kale Kharkiv iyo Mariupol iyo Sumaya. Magaalooyinkaas ayaana laga cabsi qaba in dagaal toos ah uu ka dhaco. Magaalada Mariupol oo ku taala xeebta koonfureed ayaa shalayto markii labaad ku guuldareysteen in dadka shacabka ah ay magaaladaasi ay ka saaraan
saaraan. hase ahaatee ciidamada wadanka Ruushka ayaa dhibaatooyin mararka qaar la kulmaya. Ruushka ayaa sheegtay inay dhowaan ay bilaabi doonaan howlgal ay gudaha ugu galayaan caasimada Ukraine ee Kiev ee arintaasi sare ugu qaadayaan tirada dadka maanta isaga qaxaya. Arintaasi ayaana sare u qaaday in dadka isaga qaxaya magaaladaasi ay aad u bataan, inkastoo xulafada Ruushkana ay sheegayaan in ay weli ay taageerayaan dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Vladimir Putin iyo taageerayaashiisa ayaa weli waxay rajeynayaan in ay awood dhameystiran ay hesho xukuumadda Moscow. Laakiin xukuumadda Kiev ayaa waxaa dhankeeda garab buuxa u ah dowladda Mareykanka iyo xulafadiisa oo kamid ah Ingiriiska iyo sidoo kale wadanka Canada. Lama oga wax walba sida ay ku dambeyn doonaan, inkastoo shacabku cabsi xoogan ay ka muujinayaan waxa halkaasi ka taagan. Dowladaha guud ee dunida ayaa waxay ku kala qaybsan yihiin aragti ahaan qaabka haatan ee ku soconaya dagaalka ka soconaya wadanka Ukraine. Dagaalka Ukraine ayaa waxa uu muuqan karaa dhibaato badan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa telefoonka kula hadlay dhigiisa Rajab Tayyip Erdogan ayaana sheegay inuu diyaar u yahay wadahadalada lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine, balse isku day kasta ayaa waxa uu muuqanayaa mid fashilmayo. Joojinta dagaalka Moscow ay hadda ay ka wado Kiev ayaa waxa kaliya lagu xiray in ay ciidamada Ruushka ay talaabooyinka ay qaadayaan ay noqon doonaan kuwa amni xaqiijin ah. Ciidamada Ruushka ayaa ilaa hadda 600 oo gantaal ku garaacaya Ukraine tan iyo markii dagaalku uu ka bilaabday 24 bishii Febraayo, sida uu sheegay sargaal ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka. Militariga Ukraine ayaa xadii sheegay in Ruushka ay bilaabi doonaan in ay awoodda isugu geeyaan si ay diyaaradahooda ay ku geli lahaayeen magaalada caasimada Kiev. Ciidamada Ruushka ayaa isku dayaya inay qabsadaan Kiev si ay mar kaliya awoodda wadanka Ukraine ay u soo gabagabeeyaan, balse dunida ayaa qayladhaan xoogan ka muujinayso. Warbaahinta Ruushka ayaa dhanka kale sheegtay in Putin uu telefoonka kula hadlay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo Putin ayaa waxay ka wada hadleen xaaladaha dagaalka ee Ukraine dagaalka ka soconaya sidii Putin uu joojin lahaa. Putin ayaa ka dhaga adeegay isla markaana si weyn uga soo horjeestay go'aanka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Dowladda Mareykanka ayaa waxay hore u sheegtay in weerarada noocan ah ay u muuqan karaan kuwa lagu qalqalgelinayo dunida oo idil. Waaxda Vatican-ka ayaa heegan la geliyay, waxaana laga cabsi qabaa in dagaal toos ah lagu qaado xukuumadda Moscow. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa horay uga digay in ay dunida ay soo weerarto. Zelensky ayaa hadda waxa u muuqanaya in uu dhaleecin dusha uu ka saarayo wadamada ka tirsan NATO. Zelensky oo ah hogaamiyaha wadanka Ukraine ayaa waxa uu sheegay dagaalka Ukraine ka soconaya inay ka dambeeyaan Mareykanka iyo sidoo kale dunida, waxaana uu tilmaamay dhibaato kasta oo shacabka Ukraine soo gaaraya markan loo baahan yahay in laga fikiro sidii loo xalin lahaa. asaatee xaalku weli waa uu adag yahay. Putin ayaana u muuqan karay in go'aankiisa hore ahaa in dagaal cad uu ku qaado wadankaasi dhibaatooyin kale uu geysto uu bedeli doonaa, mowqif kalena uu la soo bixi doonaa. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen runta wararka saaxiibayaal waa nageynta. haddii aad janaalka ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena, like, share, comment-iga noogu dadaala. nabadgelyo.